culimada muslimiintii markay siirada ka waramayaan waxay u sameeyaan gogol dhac ama hordhac. hordhacaasi waxay ka bilaabaan ama waxay ku tilmaamaan wixii nebiga ka horreeyay calayhi salaatu wasalaam. hordhaca waxaa looga dan leeyahay inay dadku fahmaan bulshadii uu nebigu u yimi caynkay u ekay, si aada u garan karto inta ay guurtay bulshadani markii dambe siday u ekaatay. yani waxaad qiimayn fiican sawiri kartaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii uu soo saaray iyo mujtamacii muslimiinta ee kawinmay siday u ekaadeen inta uu u jiray mujtamacii hore ee jaahiliga ahaa. oo markaad ka jaahiliga ah suuradiisa aragto ayaad garanaysaa dadkani inta ay guureen inta ay leekay. waxaa kaloo runtii dhadhawaanayo aad garan kartaa maadaama mujtamac nooca u egba la raray oo islaamnimada ay bedelka intan lee ku samaysay inaanu jirin mujtamac dunida ka mid ilaa in la rari karo noocan loo rari karo. ay ku xidhan tahay uun sida alla inoo waafajiyo subxaana wa tacaala iyo sida dadku juhdi uu bixiyo oo dadka diinta tan ugu yeedhayaan. qaybtaa hore markay ka waramayaan culamada taariikhda islaamiga ah qorta qaarba sibay u tilmaamaan, qaarkood ilaa aadam bay isku dayaan taariikh muujisa inay kasoo sheegaan. yani min aadam kutubu taariikh in badan oo ka midi nebi aadam bay kasoo bilaabaan, qaarkood waxay ka bilaabaan dhulka iyo cirka iyo sidii alla u sameeyey waa ka ilaa ay soo gaarsiiyaan. laakiin taariikhahaas hore ee qadiimka ah waxoogaaga yaree waxyigu sheegay mooyaane inta badani maxfuud maaha. sidaa awgeed labadan kitaabee horteena yaalla midba inbuu soo koobaya, laakiin waxay isku dayi doonaan inaan si fudud u wada guud maro. kow, ummadda carbeed iyo dhulkay degto waa dhul macruufa. carabina intan jaziira alcarabiya la yidhaahdo unbay taariikhdeeda oo dhan degi jirtay. carabta taariikhiyan markay culamadu qaybinayaan ilaa 3 qaybood bay ka dhigaan. carab ay yidhaahdaan waa alcarab albaa'ida ama carabtii tirtirantee hore ee gabowday, waa caad iyo thamuud iyo kuwan qur-aanku ka waramo. iyo carab ay ku tilmaamaan alcarab alcaariba oo ah qaxtaaniyiinta nimanka la yidhaahdo carabta gasha. iyo carab almustacraba oo ah kuwii nebi ismaaciil calayhi salaam ka abuurmay ama cadnaan cidda gasha ah. inkastoo culimmada badh ay leeyihiin qaxtaan iyo cadnaan labaduba ismaaciil bay galeen, waana sida uu rajaxaya ibn xajar alcasqalaani xafidahu llah raximahu llah. alxaafid ibn xajar waa sida uu rajaxayo oo isagu wuxuu leeyahay labada kooxoodba qaxtaan waa min aali naabit binu ismaaciil buu qabaa, halka ay qoladan kale ka yihiin cadnaan ibnu ismaaciil ay ka galayaan. marka aynu soo koobno had iyo goor taariikhda carbeed marka la tilmaamayo maalan qaxtaaniyiinta nimanka la yidhaahda asal waxa uu ahaa yaman. 2 qabiilo waaweynna waa u qaybsanaayeen, niman ximyar la yidhaahdo iyo niman kahlaan la odhan jiray. kahlaan inta badan waa guureenoo shaam iyo masar iyo dhulkaasi dadkii degi jiray markii dambe ayay u badnaayeen. ximyar intaa u badnaa dadka meesha tan kusoo hadhay. carabta kale ee mustacrabka ee cadnaaniyiinta loo nisbaynayo waa carabta markaasi nebi ismaaciil si dhaba uga abtirsata. nebi ismaaciilna waa ina nebi ibraahim calayhim assalaam. nebiyullaahi ibraahimna saynu taariikhda ku wada hayno dhulka ciraaq buu ka soo baxay ama dhulka ciraaq buu u dhashay, dabeetana falastiin buu u hijrooday, kadibna wuxuu yimi maka. halkan markii dambe laga sameeyey waxaanu keenay saynu wada naqaano xadiidkii bukhaari ku yaallay ibnu cabaas uu warinayay, mawquufka ibnu cabaas ku ahaa siduu sheegayey. haweenaydiisii haajiro la odhan jiray iyo ilmihii ay dhashay oo nebiyullaahi ismaaciil calayhi salaam labadoodaasi ayuu maka keenay. dabeetana maka ayuu kaga tegey isagoo aan waxba uga tegin ee uga tegay oo qura sibraar biyo ah iyo mid timira ama 2 weel oo midna biyo ku jiraan midna timiri ku jirto, oo u sheegayna inuu ilaahay subxaana wa tacaala amray inuu halkaa kaga tago. sida aynu taariikhda ku haynana waxaa la tilmaamaa ibraahim inta la hubo 4 jeer oo dambe ayuu meeshaasi kusoo noqday. yani markaa hore ismaaciil keenay, mar labaad ayuu yimi oo ah markan ay nusuusta qur-aanka ka waramaysa uu rabay inuu qalo ama inuu gowraco wiilkii ismaaciil ahaa. falama aslama watallahu liljabiin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين
wafadaynaahu bidibxin cadiim marka uu alla subxaana watacaala kaga waramayo oo ay qolada kitaabka tawraad haysata ama kana iminka tawraad ku sheegayaan sifru takwiinkooduna uu ku sheegayo inuu dhowr iyo 10 jir markaa ahaa nabiyullaahi ismaaciil mar labaadkii uu ku soo noqdayna waa markay axaadiistu ka waramaysaa inuu yimi oo dabeetana u yimi isagoo uu nebi ismaaciil ka maqan yahay gurigiisii oo gabadhu qabay uu ugu yimi dabeetana uu weydiiyey xaalkooda iyo siduu yahay oo ay sheegatay markaasi in dhib badan ay haysato nolosha ay cidhiidhi ku tahay oo yidhi waa tegayaa inankaygii fariintaa gaadhsiiya waxaad ku tidhahdaa aabbaha wuxuu ku yidhi catabada albaabka ama kaabada guriga iska bedel ayuu ku yidhi aabbaha nebi ismaaciille markii uu yimi ay gabadhii u warantay wuu fahmay aabbihii warkii uu uga tegay oo ahaa gabadhan iska sii daa mid khayr badan maahee dabeetana waa iska sii daayey waxaa kaloo riwaayaadka xadiidku sheegayaan mar kale inuu ismaaciil yimi nebi ibraahim mar saddexaad inuu kusoo noqday dhulkaasi marka saddexaadna wuxuu yimi isagoo ismaaciil gabadh kale uu guursado tii hore uu furay gabadhii kale markuu la hadlayna ee uu xaalkooda weydiiyeyna waxay ku tidhi waa fiicannahay iyana fariin buu u faray oo wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhahdaa inankaygii waa tegayahay isagoo maqan markana buu yimi oo safar buu jiro wuxuu yidhi fariin labaad xaafadadaadana yani gabadhan hayso waraa buu uga tegey mar afraad bay taariikhdu sheegaysaa taariikhda sugan ee lahayo axaadiistiiyo qur-aanka oo ah markuu kacbada dhisayey uu ismaaciilna nin weyn ahaa isaga iyo ismaaciil markay kacbada dhisayeen 4 jeer bay yidhahdaan buu nebi ibraahim kusoo noqnoqday meesha iyo markaa hore uu kaga tegey taariikhda carabeed cumuuman markaaynu tilmaamno nebigu calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu ka tirsan yahay siduu axaadiista saxiixa ayba ku sugnaatay ilaahay wuxuu doortay buu yidhi nebi ibraahim ibraahimna wuxuu doortay wiilkiisi ismaaciil ahaa ismaaciilla kanaana laga doortay kanaanana quraysh baa laga sii doortay qurayshna reer banu haashim baa laga doortay reer banu haashimna anaa layga doortay buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam markaynu taariikhda carbeed cumuuman eegno waxay iska koobnaayeen qabaa'il bay ahaayeen 3 meelood baa iyada boqortooye ka jiri jirtay boqornimo loo caleema saaro 3 meelood ayay iyaga ka jiri jireen waa boqortooyadii yaman ka jiri jirtay ee gabowday boqortooyada yaman oo waqtiyo kala nooca soo martay taariikhaha laga sheegaana runtii taariikha saa usii sugan maaha laakiin ilaa 4 boqortooyo oo kala dambeeyey baa la sheegaa oo midba muddo intaasoo qarniya intay socotay inay tirtirantay kuwa ugu dambeeyuun yaman waa ximyar qabiilka la odhan jiray oo ka mid a qaxdaaniyiintaasi intay lahaan jireen boqortooyadoodii macruufka ahayd ee ay lahaan jireen boqortooyinkaa uu sii dambeeyey oo culamada taariikh ay kusii tilmaamaan inay ahaayeen kuwii markaasi ugu dambeeyey ee ka jiri jiray waddanka yaman oo la soo gaadhsiiyey inay yihiin kuwii ay ka dhasheen markaa dunawaas nin la odhan jiro yahuudiya mar ka mida intuu qabsaday in najraan oo kristan ahaan jirtay ee lagu laayay oo ay culamada qaarkood u nisbeeyaan inay tahay sababtii ay kusoo degtay qutila asxaabi lukduud annaari daati lwaquud calaa kulli xaal markaan soo duuduubno yaman boqortooya ka jiri jirtay xiira meesha la yidhahdo ciraaq ka midana boqortooya ka jiri jirtay shaamna boqortooya ayaa ka jiri jirtay xijaas iyadu marnaba boqortooyo caynkaasi kama jiri jirin imaarooyin baa ka jiray baa la iska yidhaahdaa laakiin boqortooyo rasmiya kama jirin markaaynu soo qabanno magaalada maka oo ahayd magaalada aynu odhan karno ee taariikhda islaamiga ku weyn una baahan waxoogaa yar inaynu ka sheegno iyo qaab nololeedkeedii markiis aynu wada naqaano waa magaalo ku ooli jirtay meel buuraleeya oo 2 buurood hareeraha kaga wareegsan yihiin oo sida bil oo kale ay ku yihiin quraysh baana degtay meesha tan gaar ahaan qusay ibnu kilaab ninkii la odhan jiray oo ka mid ah quraysh nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwa ku abtirsada ka mid ah qusay ibnu kilaab ayaa degay meesha tan qusay ibnu kilaab waxay yidhahdaan waa ninkii koowaad ee awooda inuu googooyo dhirta kacbada iyo meesha xaramka ka baxda lama goyn jirin dadkuna inaan la goyn bay u haysteen haddana sharcigu saasuu qabaa laakiin qusay ibnu kilaab baa waktigiisii gooyey baa la yidhi
markuu googooyey ayuu dabeetana soo dejiyeyba xaramka gudihiisii markaas buu quraysh u kala tilmaamay meelo ay kala degdegto oo inay xaggan deg in kale xaggan dejiyey in badhan uu dejiyey quraysh maalqabeenkeedii iyo dadkeedii hantiilayda ahaa inta badan batxaa maka ayay degi jireen batxaa maka waa inta godan baa la yidhaahdaa ee kacbaduna ay agteeda ku taallo marka aynu eegno maka iyo maamuladeedu say usii kala dambeeyeen akhiiran waxaa qabsaday nimankaasi quraysh la yidhaahdo oo waday ka yahay ninkaasi la yidhaahdo qusay ibnu kilaab hareeraheedana waxaa deganaa qabaa'il kale oo ay ka mid yihiin kanaana oo ay ka tirsantahay qurayshi waa laf ka mid ah qabiilkaasi kanaana la yidhaahdo qurayshi markaasi waxay noqotay dad isku dayey in ay tijaaro adeegsadaan baac mushtar ayuu ahaa awoodooda ugu weyni magaalada maka la yidhahdana si fiican ayay u degeen qabaa'ilkii hareeraha ka deganaana waxay la galeen heshiisyo nabadgelyeed dabeetana tijaaro ayay samaysteen marna u baxda shaam iyo ciraaq marna xaggan yaman u baxda waxay u fakereen tijaaradoodaasi si ay u suurto geli lahayd dabeetana waxay u sameeyeen wax ilaaf la yidhaahdo oo ah wadooyinka ay tijaaradoodu sii marto inay la yeeshaan qabaa'ilka dega heshiisyo nabadgelyo la galaan isla markaasi inay wax cashuuroo kale ah oo ay ilaaf u bixiyeen inay ka siiyaan isla markaasina inay adeegsadaan xataa nimanka madaxda ah ee qabaa'ilkaasi u madaxda ah tijaaradooda inay saham ka siiyaan sheer inay kala qayb geli karaan inay siiyaan si tijaaradooda ay u socoto camalkaasi maalan heshiisyada la gelaya ee ku saabsanaa tijaarada quraysh ay xooga ku noqotay ninka isna sameeyey waa hashim ibn cabdimunaaf oo isna ka mid ah awowiyadii nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni qusay waa awowiyadii hore ee nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ninka quraysh maka dejiyey tijaaradooda tan ninka isugu xidhayna waa hashim ibn cabdimunaaf oo isna ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam awowiyadii tijaarada yani iqtisaadka maka markaynu soo duuduubno wuxuu u salaysnaa kow qaybi tijaaray ahayd sanaacada ama farsamada waxaa la yidhahdaa aad bay ugu yarayd waxoogaa hubkay samaysan jireen iyo dharyaha iyo waxoogaa sariiraha iyo guryaha waxa caynkaasi ka mid a in xoola raacataana way lahaan jireen iyo in ugaadhsada laakiin asaaska dhaqaaladee maka lagu deganaa waxay ahayd magaalo tijaareed magaalo baac mushtar bay ahaan jirtay maadaama ay magaalo baac mushtar ahaan jirtay baac mushtarkana asal uu yahay nabadgelyo quraysh waxay ahaan jirtay meel degan meeshay degantahay maka ahi dad badanna waxay kula jirtay mucaahadaad ama heshiisyo waxaanay ahayd un tijaarada waxa ugu badan ee ka shaqayso heshiisyada ay qabaa'ilka kale la gashayna waxay u fudaydisay in tijaaradooda ay tijaara duwaliya noqon karto oo ay duwalka kale iyo dhulka kale la baayac mushtarayn karaan weliba dagaaladii ka dhaxeeyey Persia iyo Romanska ama labadii dawladood ee waaweyn ee markaa jiray ina waxay carqalad galiyeen dariiqii iyaga u dhaxeeyay tijaariga ahaa ee isku xidhayay Yurub ama waqooyiga soo dhan iyo Asia dariiqa isku xidhaa inta badan Sham iyo Iraq iyo dhulkan baa la mari jiray dagaaladii labada dawladood u dhaxeeyay baa xidhay taasi waxay sababtay baa la sii yiraahdaa in aan dariiqi Makka oo aad u xoog bato tijaaradu inay marto oo mesela India iyo dhulka alaabta laga keeni jiray waxay iman jirtay baa la yiraahdaa badda ay soo mari jirto Yemen bay iman jirtay dabeetana Yemen bay Makka ka tagi jirtay Makka ka qaban jirtay markaasi Sham iyo xagga Roman isku ka taliya saasi daraadeed waxay noqdeen dad isku xidha mujtamacaad badan oo tijaari ah ayay Makka ahayd reer Makkana maadaama ay tijaaradaasi in badan ka shaqeynayeen waxay noqdeen dad maalqabeen badani uu ku jiro oo reer Makka rag baa kibirku gaarsiiyay weelkoodu dahab wax ku cabi jiray weelashay wax ku cabaan dahab ay ahayn Abdullah ibn Jadaan in la oran jiray koobku wax ku cabaa dahab uu ahaan jiray marka Qurayshi waxay yeelatay tabaqaad kala sareeya tabaqo tijaarada raasul maalka weyn haysata oo heshiisyada kula jirta dawladaha ama qabaa'ilka iyo wadooyinka dadka dega oo waliba tijaaradoodu qaab shirkad oo kale ay u dhisan tahay oo ah qaafilo aad u badan la israaciyo oo dadkoo dhan shares la siiyo laga qayb galiyo inay tijaarada si ka wada qayb gali karayaan oo dadka danyarta aan wax badan haysan ribo wax ku siisa nidaamka ribowiga ee bangiyadu isticmaala iyo
طبقات وحبة هيسنة آد فقراء وآد وحتر وحبة هيسنين لبدا كوحود بوي دقنايين ان دكدها استعمالي جيران انت بدن ميل الشعبية اللي يراهدا بيهان جيران وهي دكدن جدايم كاتقانين معروف كاهي waxay bilaabantay baa la yiraahdaa khilaafadii Uthman radiyallahu anhu ayay bilaabantay en markaasi Makki waxaan leenahay umuuman waxay ahayd magaalo baac mushtar oo xaggan xabashida iyo Afrikana waxa ka iman jiray buxuurta iyo dhirtan la shita iyo baalgorayeedka iyo maxaa la yiraahdaa foolmaroodiga iyo hargaha iyo ninka madoow la adoonsado xagga shaamna waxa ka iman jiray baa la yiraahdaa inta badan waxa la cuno daqiiqda iyo sarreenka iyo saliidaha iyo khamriga iyo cinabka iyo waxaasina xagga shaam bay uga iman jireen xaggan Indiya ama Indiya dhankeedana iyaga waxa uga iman jireen inta badan looxa iyo filfisha iyo bahaaraadka yani waxyaabahan yaryar raashinka lagu darsado tirada badan leh dharka iyo xariirta iyo waxaan la tolo weelasha waxaasina inta badan waxay ka iman jireen dhanka kan India tijaaradaas bay u dhaxeeyeen siyaasadda Quraysheedna umuuma waxay ahayd siyaasad ku salaysan deganaanshiyo iyo in loo dhimriyo iyo heshiisiyo in la galo oo may ahayn dad dagaal badan waayo taariikhda Quraysh waxay yiraahdaan qabla intaanu nabigu iman calayhi salaatu wasalaam aanay dagaalka u xidhxidheen horteed taariikhan waxa loo hayaaba afar dagaal waxay galeen afarta dagaalna waa xurub ilfijaar afarta loo oran jiray afarta dagaalna inta badan waxa la yiraahdaa munaawashaad yaryar baaba iska ahaayeen yani dagaalo xataa aad u waaweyn ma ahayn ee dagaalo waxooga loo lama yaryar oo aan saa u sii badnayn buu ahaa saadaradeed waxa la yiraahdaa Qurayshi intan ka horeysay islaamka may ku badnayn dagaalku siyaasadooduna waxay ku salaysnayd in dadka heshiis iyo tijaarada in shirkad laga siiyo iyo lacag iyo qaabkan fudaydka ah ay ku salaysnayd waliba waxa kale siinayeen mudnaan kale waxay deganayd markas diiniyo dadku diin ahaan buu uga dambeeyay markas diiniyo ayay deganayd oo diintii Nabi Ibrahim laga dhaxlay wixii ka soo haray meesha uu sii yaalay inkastoo markii dambe waqtigii ay khuzaaciyiintu ka talinayeen meesha tan ay diinta qaldeen gaar ahaan ninkii la oran jiray Amr ibn Luhay al-Khuzaaci oo xadiista saxiixiiba ay ku soo aroortay inuu nabigu lahaa ka waxaan arkay isagoo naar xiidmihiisa ku daba wareegaya buu nabigu tilmaamay yani ahlu naarku kamid yahay ninka kani waa ninkii koowaad ee asnaamta keena Maka sanamkii Hubal la oran jiray buu ka soo iibsaday Shaam dabeetana tuurta ku soo qaato keenay kadibna asnaam badan baa la keenay ilaa iyo Kacbada agagaarkeeda uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka dumiyay 360 sanam 360 sanam oo la caabudo sanamadaas iyo waxaasi way tiro bateen qaarkood dhagxan la qoray bay haayeen qaarkood xataa waxa iska ahaydun meel yaro buuro taagan oo dhagaxun ku urursan yihiin مثلا سنمدي أصافيا نائلة iyo waa kuwii Marwe iyo Safwa iyo meelaha yaalay iska kor yaroon oo kuusan oo dhagxan saaran tahay ayay ahayd sanam caabudkan iyo waxa kanina dasa Bukhari ba sheegay xadiiskii Abu Rajaa al-Utaradi saxaabiga la oran jiray uu tilmaamayay waa ki sheegay yani dadku say sanam caabudkan iyo waxa kan xad bay ka gaadheen oo laha marka aanu weyno xataa dhagax intaanu ciid isku ururinaabanu neefadhiya kullisnaa buu yidhi markay isku dhigtaan caana idaado kale marka lagu liso isku dhago ciidda yari ay sii dhagaxo kale u ekaataabanu sanam ahaan u caabudi jirnay yani xad marka xataa dhagax la waayo in caana lagu lisi jiray ciidda inay isu yaro dhigto uun aad waxa u batay asnaamtaasi iyo cibaadaadkaasi la halmaala sanamadaasi markaynu u soo noqono magaalada Maka iyo dhismaheeda iyo qaabkay u salaysanayd waxaan leenahay Kacbada ay deganaayeen baa dad badan kaga dambeeyay oo Quraysh manzila ay ku haysatay markaynu eegno Maka iyo dadkii u kala dambeeyayna Jurhum ayaa taariikhda inta la hayo kuwii ugu horeeyay ahaa Nabi Ismaaciil ba uu ugu yimi agagaarkooda iyagoo degan dabeetana Khuzaaca dabeetana Quraysh baa degtay Quraysh waliba Qusay ibn Kilab ninka la yiraahdo markaynu eegno taariikhda maanta la hayo kama badna mesela adabka jaahiliga Carabeed iyo waxa marka la eego ilaa 150 sanadood qabla islaam taamacneedu waxa weeyaan 400 iyo waxoogaagii meelahaasi ay u badantay taariikhdu wixii ka dambeeyay si fiican loo hayo ee meesha tan taalay waxaana bilaabay uu ninkaasi Qusay ibn Kilab la oran jiray markuu meesha tan degay
qusay ibnu kilaab markuu dhirtan googooyay quraysh meesha dejiyey oo inta maalqabeenkiina magaalada meesha gudaheeda ay sii deganayd dacalladeedana inta aan waxaysan baa inta badan deganayd wadaa'iftii diiniga ahaydna isaga ayaa reerkooda u qaybqaybiyey ama caruurtiisii qusay ibnu kilaab waxa ugu weyne uu meesha tan ka sameeyey waxaa ka mid ahaa daaru nadwa oo ah guri ay qurayshi ku shirto oo laysugu yimaado oo taladoodu ka go'do gurigaasi oo runtii ay yidhahdaan waa waxyaabihii saaciday inay maki ahaato meel nabadgelyo iska salaysan waayo mar haddii la hayo meel waayeelku intuu isugu yimaado lagu shiri karo arrinta lagu gorfayn karo qadiyad kastaoo dhacda mar haddii ay soo gaadhi karto waayeelkoo loo soo gaadhsiin karo waa arrin inta badan nabad iyo xal ku dhammaan karta qusay ibnu kilaab markaa waxyaabaha caankii uu sameeyey waxaa ka mid ahaa daaru nadwa meesha la yidhaahdo oo uu ka sameeyey guri yar oo xagga albaabka kacbada u furan oo ay odayada quraysheed oo dhamme fadhiistaan oo lagu shiro waxaa ka mid ahaa inuu liwaaga quraysheed isagu markaasi gacanta ku dhigtay oo inaan dagaal geli karin qurayshe ilaa iyo liwaagan ay hayaan mooyaane waxaa ka mid ahaa yani xijaabada oo ah furahan kacbada inay iyagu haystaan iyo sadanada iyo cidda u wadaadada iyo intan oo dhan inay iyagu gacanta ku hayaan waa xijaabadii oo ka mid ah rifaadada waxa la yidhahdo rifaadat lxujaaj oo ah xujaajtu markay yimaadaan waxa aan waxhaysan in diyaafo loo sameeyo meel ay wax ka cuni karaan dadkan soo xajaya waayo xajku waa cibaadaadkii uu ka tegay nebi ibraahim marka calayhi salaam ilaa nebi ibraahim saanu baa loo soo xajayay marka xataa intaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iman waa la xajayay laakiin xajkii oo la qalday oo shirkiyaad iyo waxaan diinta ka mid ahayn lagu daray ayaa joogay marka xujaajta iyo dadkan isugu yimaada ayuu wuxuu u samayn jiray diyaafa meel xawd ay ka cabaan oo biyo uu macaaneeyo timir iyo zabiib uu ugu daro iyo cunno la siiyo wuxuu u sameeyey yani siqaayat lxaajka rifaadada xijaabada waxaasoo dhanna isaga gacanta ku hayay baa la yidhahdaa iyo caruurtiisii qaar ka mida buu gacanta usii geliyey maalan daaru nadwaha uu sameeyo kale baa la yidhaha albaab bay lahayd xagga masjidka kacbada usii jeeda waa meeshii umuurta dagaalka iyo nabadda iyo waxaasoo dhan lagu go-aamin jiray waa meesha ay ku samayn jireen cuquudoodii maalan wixii heshiise ama guur ha noqoto ama heshiisyada dhaqaale iyo waxaan la kala baac mushtarkan socda ha ahaato waxaana fadhiyi jiray baa la yidhaha mala-ulqowm madaxya waaweynta reerka nin 40 ka yari ma fadhiisan jirin bay sheegaan culamada taariikh markay ka warwaramayaan daaru mashhuura bay ahayd runtii qusay ibnu kilaab ninkaa la yidhaahda quraysh ka tirsanaa magac weyn buu ku yeeshay quraysh dhexdoodii caadaadkii iyo dhaqamadii iyo wixii uu gooyey qurayshna diin bay ka dhigteenba in sidooda loo raaco aan waxba laga qasin ama ha noqoto siduu ugu qaybqaybiyey arrimahaasi maamulka ah ama ha noqoto wixii caadiya dhaqan uuga tegey tolkii waxay ka dhigteen uun wax diin oo kale ah oo sideeda loo ilaaliyo gaar ahaan nimanka odayada ee qurayshi ninkaas wixii uu go-aamiyey iyo go-aamadii waagaa la qaatay sideeda ayaa loo qaatay isaga dabadiina waxaa soo baxay runtii rag ka mid ah abnaadiisii ama dadkiisii ou ka mid yahay hashim ibn cabdimunaaf oo uu ka mid yahay almualib ou ka mid yahay cabdilmualib ou ka mid yahay abaalib oo dhammaantood aan odhan karno un waxay sii kala dhexleen inay sii haystaan wixii uu aabahood ka tegey ee ku saasiibnaa qadiyadaasi maamulka maalan hashim ibn cabdimunaaf ibnu qusay yani qusay waa awowgii waa ninkii bilaabay heshiisyadana in lacag loo qoro dadkan wadooyinka ee tijaaradooda ay martaan ee ilaafka waxaan loo bixiyey ee ka dhigay tijaaradii quraysheed inay noqon karto mid duwaliya oo ka baxsan meeshan yaroo dhan waana ninkii u qoday baa la yidhaha ceelal badan buu u sameeyey reer mako ay ka cabaan walaalkii oo almualib ahaa ayaa ka dhaxlay markuu isagu dhintay qabsaday mualib wuxuu ku caan ahaa baa la yidhahdaa nin dulmiga neceb buu ahaa nin akhlaaqda fiican dadka fara buu ahaa nin cibaado badan buu ahaa quraysh markaa oday ay ka dambeeyaan buu ahaa waxaa ka mid ahaa hashim inankuu dhalay ee mualibna adeerka u ahaa ee loo bixiyey cabdilmualib magaciisa caadiga shayba baa la odhan jiray oo waxaa la yidhahdaa hashim ayaa qabtay baa la yidhaahdaa hashim markuu guursaday ee wiil dhalay ayuu ka tegey wiilkii uu dhalay wuxuu kaga tegay yani isagoo yar ayuu hashim dhintay dabeetana
odaygan muطaliba baa waadanba loo sheegay isagoo wiilkii 6 jir meelaha maraya ama weynaaday wuu doono wuu soo qaaday markii uu keenayna carabtii ama quraysh waxa aragtay wiilkan yar uu sito dabeetana wiilkii waxay isaga bixiyeen war waa adoon yar oo isagu keensaday bay Abdul Muttalib bay u bixiyeen yani magaciisa asalkii Shayba buu ahaa Muttalibna waa adeerkii oo Hashim la walaala oo soo koriyay markaas iyo keenay dabeetana Abdul Muttalib uu iskaga caanbaxay Abdul Muttalibna waxa runtii nin aad ugu caanbaxay deeq oo Shaybat al-Hamdi bay markay doonaan oran jireen waanu kala ku caanbaxay waa ninkii uu qoday mar labaad ceelkan Zamzamka يعني زمزمku nabiyullaahi ismaaciil ayaa ka tegey laakiin waxay yidhahdaan khusaaca berigii meesha la isku dildilay ee ay arkeen inay ka baxayaan bay aaseen ama dabooleen ama tirtireen marka meesha waa la waayey waxaa la sheegaa inuu riyooday cabdilmuطalib ilaa 4 jeer uu riyooday markii ugu dambaysayna in loo tilmaamay meeshay tahay riyadaasi sanad xasana bay runtii ku soo aroortay ilaa cali ibn abi aalib ka soo aroortay dabeetana ceelkan buu u qoday ceelkii zamzamka markuu qoday soo saarayna waa muran dambe ka yimi oo quraysh ba ku qabsatay quraysh markay ku qabsatayna qaab bay u garnaqsadeen ala kulli xaal insha Allah waa laga yaabaa inay mar dambe inagu soo noqoto waxaan uga jeednay intan aynu ka waramayno oo dhan umuuman inaynu ka warano qaabkay u dhisnayd magaalada Maka iyo sidii loo joogay laakiin taariikh ahaan marka laga waramayo taariikhda had iyo goor waxay ka bilaabaan nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii maadaama taariikhdeenu dee nabiga uunay ku salaysantay calayhi salaatu wasalaam inta ka horeysa waxaad moodaa inaan wax badan laga sheegin ama wax badan dadku ka odhanin waxa ugu badan ee laga waramaa inay tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhalashadiisii mararka ugu badan waxa kale laga waramaa waa zamzamka iyo sidii uu qodmay iyo in la tilmaamo maasirtan reerkii uu nabigu ka dhashay inay reer meesha magac la ku ahaayeen haduu yahay odaygii Qusay ee magaalada deegaankeedii waxa kan